وصدح يلا تنكي أوغس لابد يكون يكودي أرض بان ما أنتوكله سجالية توانسن لوات كور وجدا عن داوع مي وقت بدن با runtii iga lumay waxaan kula dardaarmayaa haddii aad ku soo baxdaan meel hubshadi ka jirto inay ardaydu aanay ku milmin oo ay ka fogaadaan waan xusuustaayo dugsiga xalanaagtiisaan maraynay waqtigaasoo anigii arday kale oo boodii lugta midig ba xabadi kaga dhacda waxa jiray salaadiinta ay baysay markaa dawladdii marxuum cigaal ilaahay u naxariistay xilliga fasalka waxaan ku saddexaad ayaan galay waqti dheer baa iga lumay dibadaha lay qaaday dhaqaatiir kala duwan oo dunida la soo mariyay sanadka bacdi baan waxaan ku markii la kabay haddana aan dib u jabay August-teedii haddana biraa la geliyay waxaan u soo qaatay dhacdada ardaygu waa inuu ka qayb qaataa nabadgelyada ardaydu nabadgelyada door bay ka qaadan karaan nabadgelyo daradana haddii ay ku milmaan door bay ka qaadan karaan marka inaga ballankeen waxa weeyaan oo waxbarashada haddii nabadgelyo darro dhacdo waxbarashadu way naga burburaysaa waxaan filayaa inaad la socotaan guud ahaanba adduunka caalamka waxaa ka jira xanuun la yidhaahdo coronavirus markii hore waxaa la odhan jiray dadka da'da yarar kuma dhaco oo dadka da'da waaweyn buu ku dhacaa xanuunkani maalinta ka dambaysa ayuu isbedelaa oo uu imika kuwa 5 jirka ah ilaa 80 jirka uu ku dhacaa saas daraaddeed waxaan kula talinaynaa guddidii waxaa ka jooga wasiir Khaliil wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye iyo anigoo xogeeyo guddida Cabdullaahi Suud sheegay nabadgelyada in ardaydu ka qayb qaadato dhisaan haday ardaydu rabshad sameeyaan dalkoo dhan rabshad baa ka dhacaysa ardaydu haddii ay u hoggaansamaan awaamiirta dawladda iyo awaamiirta madaxdoodana waxaan filayaa meesha ugu wanaagsan ayay geyn karaan marka waxaan u soconaa maanta kormeer ah bal muxuu ahaa xanuunkan adduunyada ku jira sidii yani dadka Soomaaliland looga magaranaysa wacyi gelin lahaa loo oran lahaa war xanuunkii wali weyn nagu jiraaye aynu isbadbaadino ardayda laftooduna waxa laga maarmaan daayiratiin inaad ku baraarugtaan oo waalidiintiin waxa dhici karta idinku inaad xanuunka qaadaan oo aanu idinka muuqanin laakiin gurigii marka kula noqotaan aabihiin iyo hooyadiin oo xanuunsanaya ama ayeediin ama aad tigin dadkii guriga ku noolaa waxa dhici karta inay dhibaato u timaado sidaas darteed ilaahay baa badbaadada haya in la isbadbaadiyo oo la kala fogaado saddex baad u fadhideen wasiirka idin soo kiciyay wuxuu laba loo fadhiiso waa protocolka ama habraaca ay guddida qaranku oo wasiiradu ay ka mid yihiin ay ugu tala galeen الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزيرك وزارة وحبرشة يا ساينسكا أفينك وزارة يو حبنتا دير أو حقيقة جود دا التعاليد دا كورونا فيروسكا لما أنتي ما أردت قيمة حفظنا شرفت له لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتك كدي بعد الريال رنتي وحين حسنا يسا وايو وحو شيء عبد الله سنتون سنة كهر بو شيء لكن waxaanu sheegaynaa anagu 40 sano ka hor baan sheegin 40 sano ka hor ayaanu alxamdulillah waxaan u maleynayaa eeridan iskuulkaas markuu cusbaa dadkii goobka ka goran jiray dhisna maanta waa qalqalcusantay naga daada weyn ayaan goobka cuni jirnay marka maanta farxad bay noqotay runtii inaan soo boqono iskuulkan Faarax Umar qiimaha leh iyo ardayda runtii wax ka dhigata annagoo uga jeedada tahay inaanu isla fahamno oo ku baraarujino habraacyadii loogu tala galay xanuunkan coronavirus looga maartay gaashaanman lahaa ilaahay waa gaashaankeena noqonaya xanuunkan sida la sheegay waa xanuun runtii adduunka oo dhan wada maray ilaahayna subxaanahu wa ta'ala qadaray waxaan u baahanay marka sidii hore ugu dadaalo mar kasta xanuunkan waxa laga baqayaa inuu soo laabto ee laga bayo qabowga iyo la socda baa leeyahay waa inta aqoonta leh dadka baray weeyaan qofka bini'aadmiga aqoonta laguma yaabo laakiin waa u togahay waxaanu sameeynaynaa ku talagal iyo diyaar garow sidaan horeba ugu diyaar garownay dhibaato badan buu leeyahay waa run kubadda ciyaariseen kala fogaansho isku dhawaanshihiin iyo dib bay ku tahay laakiin waxa ka daran idinku xanuunsada way xanuunkan wuxuu leeyahay hortag ka daba tag ma laha ilaahayna wuu ina faray subxaanahu wa ta'ala khuduu hidrakum ilaahay leeyahay war digtoonadiina qaata dagaal haday tahay haday nolosha tahay digtoonow baa lagu leeyahay qofka muslimka waa qof fariidka ah ee god jeer laba jeer god laga wada qaniino haddii mar ay wax ku dhacaan dalkan ku dhacaan in ka dambayska ilaalinaa loo baahan yahay
oo idinku waliba waxaa tihiin dadkii wacyigelinta waa secondary baa tihiin levelka joogto oo dugsi sare ragii wacyigelinta qaadi lahaa baa tihiin ee dadka u sheegi lahaa dadka ay ku ciyaar lahaa maaha noloshiina isla badbaadiye xanuunkuna inta badan hadda markaan eegnay muxuu ahaayay ihsaa'iyaadkii statistics-kii waxa soo baxday dadkii ugu badnaa ee xanuunkuna ku dhacay waa wixii u dhaxeeya 20 jir ilaa 30 jir 40 jirku ka yar yahay 50 jirku si yar yahay 100 jirkii ilaa 80 jirku ka sii yar yihiin hoos marka loo eegana 18 jirkii 20 jirkii waxaan 18 jir ilaa iyo 5 jir ilaa iyo qaar baa jira bil jiray oo xanuun ku dhacay oo hooyadii ka qaaday marka waxa weeyaan marxaladii khatarta ahayd baa ku jirta idinku ee islaalinaysay isdowraysay waana dhaxda mustaqbalka ummadda marka sidaa uu sheegay Xuseenna waxa loo baahan xanuunka inaad ka dhowrtaan waxaad ka ilaalinaysaan markasta nadaafadda weysada ilaaliya farxalka ilaaliya kala fogaanshaha isku yara bara oo ku dadaala intaas ku soo koobi lahaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inuu ilaahay dambigeena dhaafo ilaahay saaka aqoon ku dhistaan u timaadeen aqoonta ilaahay ku arsaaqo qalbigiina ilaahay u furo aqoonta iyo cilmiga ilaahay qalbigiina u furo ayaan ka baryaynaa xanuunka dunida aafiyay ee COVID-19 oo inagoo ka ladanahay imikana bariyahan aynu la moodaba deynuna laakiin dhakhaatiirta ay yiraahdeen bahalku wuu jiraa adduunyada wuu ku jiraa meel walba wuu joogaa taxadirkii waa in la sameeyo marka waxa la soo saaray qodobo waxbarashada quseeya oo leedahay habraaca COVID-19 waxa ka mid ahaa in aanay fasalkii 40 mitir isku wareeg ahaa aanay gelin wax ka badan 30 arday taa macnaheedu waxa weeye arday kasta inuu helo 1 mitir oo laba jibaaran oo intuu wax ku dhiganaya nasiisari ma hadda inay xaqana inta ka xigto oo de fasalku sidoo yahay ku xidhantay laakiin waa inuu inta helo maxaa loo jeedaa in hawo ku filan hesho in ardaydu kala yar durkaan oo hadduu ila warmahayna hadduu mid xanuunka uu leeyahay aan markaba faafinin intii taagteena aanu ka hortagno habraaci intiinan markaan u nimi aanu fasalkiini u nimi ma ahayn habraaci da uu ka duwana marka sababtaas la idin soo saaray caafimaadka horta number 1 waxaanu dhiganaynaa space kale hadaynu weyno geed hoosti baynu ku dhiganaynaa fasalla kale wasaaradda u taala inay idin hesho wasaaradda waajibka leh maamulaha leh guddoonka waxbarashada leh aniga leh haddii fasal la idin sameyn waayo mas'uuliyadeedii baanu gabnay weeyaan marka mas'uuliyadda hadday mas'uuliyiintu ay gabaana waa inaydaan idinkuna aamusina intaa waxa la haysiyaa number la soo waco la yiraahdo niyo iskuulkayga waxaas kaga duwayay waxaas ku fiican yahay de amaantii dhaliisha baad sheegaysaa marka تعليم بابرنا سانة إن بكوينا إن مركز سي برنو شرعي قف متعلم كهدو شرعي فلوه إياها براعة كأم برنين ده إساقنا لقى ما في ليو هبراعة أنا أنت الدين تو أي نوش هكتها هدين رعنو ده أنت صاحبه هرت هبراعة وجويني النولاشة الدستور كوا هواكا أنت دخاتير تو أي نوش هكتنا وعلم لبرتها من الدين تهلك صور ده وعم ضدكو حسب يداله marka waxaan ka codsanayaa idinkoo wax baranaya nidaamka habdhaqanka qofku waxbarashadu waa inay wax ka bedesho qofka oo adiga iyo ka fursad aan helin waa inaydaan isku mid noqonin tacliintu qofka maskaxdiisa ay dhistaa shakhsiyadaada ay dhistaa hab nololeedkaaga ay bedelaysaa qof toosan bay ka dhigaysaa arsaaqadana de Ilaahay baa qoray marka hadda waxaan ka codsanayaa habraaca ilaaliya